waad ku mahadsan tahay inaad ka mid noqoto walaalaha almuxsiniin. fadlan nala faafi khayrka oo sheer garay asxaabtaada hana ilowin laagta. mahadsanid. addoon yahow tuko, waayo shayga keliya ee kala saara gaalada iyo muslimiinta waa salaadaadana ku weyney alle subxaanahu wa tacaala adigoo adeecaya samaynaya wax walbo uu ku faray. qur-aankana u akhri si degan, una sujuud si khushuuc leh, una adeec ilaahay subxaanahu wa tacaala adigoo ka baqaya, una og in ay aakhiro ay dhowdahay. rasuulkeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam ayaa yidhi, qofkii salaada subax ku tugta masaajidka iyadoo jameeco ah, haddana markii salaada laga baxo ilaahay subxaanahu wa tacaala adeecnimadiisa u fadhiista ilaa ay qoraxda ka soo baxdo, waxaa u sugnaaday ajarkii xajka iyo cumrada oo dhammaystiran. salaada subax waxay ka mid tahay waqtiyada uu alle subxaanahu wa tacaala ugu jecel yahay, sababtoo ah waxaa ku jira daacadooyinka midka ugu fiican iyo u dhowaanshaha alle subxaanahu wa tacaala. alle subxaanahu wa tacaala wuu dembi dhaafayaa dhammaan dunuubta, hadday tahay xitaa mid la facbuuraha. rasuulkeenana Muxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, qofkii tugta salaada fajirka ama salaada subax isagoonan ka dhaqaaqin booskiisa, kuna mashquulin lahwiga dunida iyo wixii quseeya, waxaa u sugnaaday dembi dhaaf sidii maalintii hooyadiisa ay foolatay oo kale. rasuulkeena Muxamedna sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, qofkii ka dhahaa markuu salaada subax ka baxo, laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu lxamd, yuxyi wayumiit wahuwa calaa kulli shayin qadiir, waxaa u sugnaaday 10 xasano, waxaana loo dembi dhaafayaa 10 xumaan, waxaana kor loo qaadayaa 10 darajo. maalinkiisana wuxuu ahaan doonaa mid ilaahay agtiisa ku dhowrsan, waxaana laga dhoorayaa dhammaan shayaadiinta iyo jinniga. waxaana la sheegay in ay jiraan 7 shay kuwa oo haddii aad samayso marka aad ka baxdo salaada subax adigoona booskaaga aan ka dhaqaaqin, inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku karaameyn doono, dadka kalena kaa sooci doono, wax niyadaada ku jirana uu alle subxaanahu wa tacaala kusoo siin doono. shayga koowaad waa istikfaarta. xabiibkeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam waxa uu ahaa mid ilaahay subxaanahu wa tacaala u istikfirlaystaa markii uu ka baxo salaad weliba, ha ahaato salaada fajirka ama salaad kasta. wuxuu dhihi jiray istakfirullah, 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 wuxuuna dhihi jiray allaahumma anta asalaam wa minka asalaam, tabaarakta yaa da aljalaali waalikraam. midda labaad waa akhrinta aayatul kursi. rasuulkeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam markii uu salaada subax ka baxo waxa uu u fadhiisan jiray inuu akhriyo aayatul kursi. allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum, laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm, lahu maa fi alsamaawaati wamaa fi alard, man da aladii yashfacu cindahu ilaa biidnih, yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum, walaa yuxiiطuuna bishayءin min cilmih ilaa bima shaaa, wasica kursiyuhu alsamaawaati waalard, ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. مد سدحات وأخرين سورة الفلق هي معاوذتينك 6 جار، ونقول هو الله أحد، يقول أعوذ برب الفلق، يقول أعوذ برب الناس. ولا ليال أن كدذان صلاةهنا aan u dhowaano ilaahay subxaanahu wa tacaala, aan u towbadkeenno allihii ina abuuray. maalin kasta waan gafnaa, maalin kasta dembi ayaa galnaa, balse ilaahay subxaanahu wa tacaala waa qafuur raxiim, wuu inoo dembi dhaafi doonaa insha allah. walaalayaal waxaa idinku baraarujinayaa inaad ku dadaashaan salaadihiina, una dhowaataan alle subxaanahu wa tacaala. adduunyadani waa maalimo kooban oo waa laga tegi doonaa, meesha aan u socnona waa aakhirana waxay u baahan tahay in loo shaqaysto. walaalayaal aan u dhowaano alle subxaanahu wa tacaala
oo aan iska dhaafno lahwiga iyo lacibka iyo waxyaabaha waqtigeena luminaya. waad mahadsantihiin sidii aad nala socoteen bilowga ilaa dhammaadka fiidiyowga. halkaani waa gunaanadka iyo gowgabada barnaamijkeeni maanta. waad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad. waa walaalkiinii cabdiqaadir. waad ku mahadsantihiin daawashadiinii wacnayd. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.